waa maxay noocyada shaqo la'aan ee badi ka jira caalamka? ma ii sheegi kartaa sababaha ku keenay in wadamo badan ay shacabkoodu shaqo la'aan soo wajahdo? sidee bay wadamada caalamka uga gudbi karaan mushkiladda ay shaqo la'aantu sababtay? haddaba su'aalahan iyo kuwa la mid ah waxaan ku qaadi dhigi doonaa mowduucan. waxaan maalin walba maqalnaa in malaayiin qof ay ka gudbeen xuduudaha wadamada reer galbeedka. dadkaasi oo ka soo hijrooday dhulkoodii hooyo. haddaba maxay tahay sababaha ugu waaweyn ay dadkaasi uga soo hijroodeen wadankoodii hooyo? sababta ugu weyn ee aan ku sifayn karno waxa uu noqonayaa amni la'aanta iyo in wadankoodii dagaal iyo burbur uu ka jiro. sababta labaad ee aan dhihi karno waxay ku kaliftay in ay ka soo hijroodaan dhulkoodii hooyo ayaga u qaxaya wadamo kale oo aysan cidna ka garanayn. sababtaasi waxaan dhihi karnaa in ay tahay shaqo la'aan iyo in aysan wadankoodii ka helin fursad ay ku shaqaysan karaan. musiibooyinka ku dhacaya kobacii dhaqaalaha iyo isbeddelka waqtiyeed ee la falgelaya shaqaalaha kuwaasi waxay saameyn iyo isbeddel ku samayn karaan xaddigii shaqo la'aanta ee wadanka ka jirtay. haddaba daawade sidaan ogsoonahay waxaa adduunka ka dilaacay fayrus loo yaqaano coronavirus. xanuunkani waxa uu shirkado badan iyo goobo ganacsi oo aad u tiro badan ku kalifay in ay khasaaraan malaayiin lacag ah. sidoo kale ay ku sigtaan shirkadooyin tiro badan in ay musallifaan. sidoo kale waxa uu keenay ama sababay in dad badan ay shaqo la'aan noqdaan. haddaba waa maxay noocyadan shaqo la'aanta tirada badan keeni kara? haddaan soo qaadano nooca koowaad ee aan dhihi karno waxa uu keeni karaa ama caalamka uu hadda ku sababay xilligan la joogo mushkilad dhaqaale. noocaas wuxuu noqon karaa psychological unemployment. ciriiri dhaqaale marka uu dhaco waxaa yaraada dalabaadkii badeecadaha iyo adeegyada. sidoo kale dadka doonaya inay shaqaystaan waxaa ku adkaanaya inay shaqo helaan. sababtee ayay dadku ku keeni karaa in ay shaqo la'aan noqdaan ama in aysan shaqo helin? markii laga hadlayo mowduucan psychological unemployment waxaan nidhi psychological unemployment mushkiladiisa ugu weyn waxa ay tahay in ay yaraadaan dalabaadkii badeecadaha iyo adeegyada. dadkuna waxay shaqo u raadsadaan baan nidhi goobaha ganacsiyada, hadday noqoto shirkado, bankiyo, warshado, kuwaasoo dhan ayay shaqo u raadsadaan. haddaba markii shirkaddii soo saaraysay badeecadaha iyo wax soo saarkeedii ama samaynaysay adeegyada ay la soo wajahdo dalabaad yari, yacni in badeecadihii ay soo saaraysay shirkaddu aan la dalban oo aan laga iibsan, maxaa dhacaya? waxaa dhacaya in aysan shirkaddu baahi badan u qabin in ay wax shaqaalaysiiso. xataa waxaa dhici kara waan nidhi in shaqaalaha rasmiga ah ee shirkaddu ay leedahay ay booska ay ka baxaan oo ay ayaguna bannaan ku soo dhacaan oo ay shaqo waayaan. shirkaddu markaasi ama xilligaa la joogo waxay ku fikiraysaa qaabka ay uga bixi lahayd mushkiladan dhaqaale ee soo wajahday iyo qaabka ay badeecooyinka iyo wax soo saarka ay samayso ama adeegga ay qabato ay suuqgeyn ugu samayn lahayd. haddaba noocan psychological unemployment-ga ee keenaya in dalabaadkii badeecooyinka adeegyada ay yaraadaan ayaa waxa uu keenayaa in ay shirkaduhuna ay yareeyaan baahidii ay shaqaale u baahnaayeen. sidaas darteed waxaa wadankaasi ku badanaya xaddiga shaqo la'aanta. nooca labaad ee saameyntiisa aan la yareysan karin waxaa weeye structural unemployment. noocan shaqo la'aanta ahi waxaa keena isla jaanqaad la'aan dhex timaada xirfadaha ay leeyihiin dadka shaqo raadiska ah iyo shaqooyinka laga helayo deegaanka ay shaqada u doonteen. haddaan si kale u yiraahdo
shirkadaha shaqada bixiya nooca khibrad ay doonayaan in uu yeesho shaqaalaha ay doonayaan in ay shaqaaleysiiyaan iyo shaqaalaha xirfadda uu leeyahay oo aan isla jaanqaadayn taasi waxa uu la jeedaa xilligan la joogo shaqaalayaasha intooda badan in ay leeyihiin xirfad qadiimi ah taas oo aan la jaanqaadi karin isbeddelka tiknoolaji ee caalamka ka dhacaya shirkaduhuna si ay u xaqiijiyaan hadafkooda mustaqbaleed waxay doonayaan shaqaale leh xirfad qoto dheer kaas oo ka saacidi kara in ay xaqiijiso riyooyinkeeda haddaba habkan sidee buu u saameyn karaa in dad tir badani ay shaqo la'aan ku dhacdo tusaale ahaan haddaan soo qaato warshad ayaa waxay samaysaa wax soo saar ama dalag bay soo saartaa dalagga ay soo saarto shaqadaas dalagga ah ama wax soo saarka ah intiisa badan waxaa qabta robotyo ama kombiyuutaro ayaa qabta waxa robotka loo yaqaan ayaa sameeya arintani markii loo eego xagga shaqaalaha sida ay ku yeelan kartaa saameyn fiican may u tahay in shaqooyinka ay robotyo qabtaan ama saameyn positive ay ku yeelan kartaa saan ogsoonahay oo qof walba kala dhacsan waxa weeye in ay saameyn negative ku yeelan karto sababtoo ah shirkadu markii baahidii wax soo saar uga filnaado robotkan oo uu dhammaan shaqooyinka u qabto waxaa shirkadaasi ka yaraanaya baahidii ay u qabtay in ay shaqaale soo qabsato oo ay shaqooyinkii ay rabtay inuu u qabto ayaa ka yaraanaya boos walbana waxa ka shaqeynaya robotyo sidaas darteed arintaasi waxay hoos dhigaysaa baan idhi shaqaaleysiintii waddankaasina maxay ku keenaysaa waxay ku keenaysaa in xaddiga shaqo la'aanta ay ka jirta waddankaasi ay aad u karakacdo ay aad karakac weyn u samayso taas oo dhulka ku jiidaysa horumarkii dhaqaale ee waddankaasi higsanayay nooca saddexaad ee ka mid ah noocyada shaqaalaha waxaa ka mid ah frictional unemployment frictional unemployment-gu noocan waxa weeye boosbedelasho uu sameynayo shaqaaluhu yacni si kumeel gaara ayuu shaqaduu haystay isaga joojinayaa si uu u raadsado shaqo ka fiican miduu haystay duruufaha uga soo tegi karo shaqadii uu haystana waxaa ka mid noqon kara in mushkilad dhaqaale inuu uga soo tagay shaqadii yacni haddaan dhaho in waqtiga shaqada laga shaqaynayo oo aad u badan iyo mushaarka uu ka helayo oo aad u yar waxaa ka mid noqon kara duruufaha uga soo tegi karo shaqadoo ah mid aad u adag ama halis ku noqon kardha noloshiisa hadduu waxaa dhici kardha xaaladahaas in uu shaqaaluhu si dhaqsaa u heli waayo shaqadii uu rabay sababtoo ah shirkadaha iyo goobaha ganacsigu si ay u helaan shaqaalihii ku habboonaa waxay ku bixinayaan waqti dheer raadintiisa in ay baaritaan ama ay tijaabo marayaan shaqaalihii inuu yahay shaqaale u qalmada shirkadda inuu yahay shaqaale leh xirfadii looga baahnaa taas inta ay tijaabinayaan waxay qaadanaysaa muddo dhan bay qaadanaysaa saas darteed xilligaasi waxay sababi kardhaa in qofku uu xilli badan uu noqdo baagamuudo u noqdo taasuna waxay kor u qaadaysaa baan idhi xaddiga shaqo la'aanta ee waddanka jirtay waa maxay sababaha keenay in dad tiro badan ay shaqo la'aan noqdaan iyo in waddamada qaarkood xaddiga shaqo la'aanta ay ka jirto ay sanadba sanad ka dambeeya ay sii kororto haddaba si aad u fahantid daawade aan soo qaato tusaale waddanka turkiga dadka ay da'doodu ka weyn tahay 15 intii u dhaxaysay November 2018 ilaa November 2019 waxaa shaqo la'aan noqday 327,000 oo qof yacni muddada sanadkaas ee u dhaxaysay November 2018 ilaa November 2019 waxaa shaqo la'aan noqday sanadka gudihiis 327,000 oo qof taas oo ka dhigaysa shaqo la'aanta ka jirta waddankaas 4,308,000 oo qof haddaba waxa is weydiin mudan waa maxay sababaha ku keenay Turkiga in xaddi intaas la'eg ay shaqo la'aan noqdaan waxaa jira khubaradu inay sheegeen sabab dhowr ah in ay ku keeneen shaqo la'aanta sababta koowaad waxa weeye in nidaamka reer galbeedka ku dhawaad 5 ilaa 6 qof shaqooyinka ay qabtaan
ay turkiga 3 qof ay qabtaan yani waxa ka wada shaqo loogu talagalay in 6 qof ay qabtaan ba turkiga ama dawladda turkiga waxay shaqaalaysiinaysaa in ay shaqadaas 6 qof loogu talagalay ay 3 qof ku shaqaalaysiiso ay 3 qof ay qabtaan qodobka labaad waxa weeye in ururka shaqada caalamiga uu sheegay in shaqaalaha wadanka turkiga ay shaqeeyaan saacado dheeri ah saacado xad dhaaf ah yani isbuuci inay shaqeeyaan 48 saac iyo wixii ka badan taas oo ku tusinaysa xaddiga aadka ah ee maxay ay wadamada kala dheer yihiin yani wadamada kale isbuuci shaqada ay shaqeeyaan macna saacada ay shaqeeyaan 30% turkiga marka uu yahay caalamku waa 15 macna saacada dheeri ah oo aad u badan ay shaqeeyaan sababtoo ah shaqooyinkii 6 qof loogu talagalay ay 3 qof ku shaqaalaysiiyeen marka 3 qof si ay shaqadooda u dhameystiraan ama shaqadaas 6 qof macna booskooda u dhameystiraan waxay khasab ku ah inay mataqaana waqti dheer bixiyaan oo waqti dheer shaqada ku qaataan sababta saddexaad waxa weeye in turkiga shaqaalaysiinta dumarku ay xilli dhow bilaabatay yani xilli dhow in xawaaraha shaqaalaysiinta dumarka la shaqaalaysiinayo ay turkiga bilaabatay 2008 iyo wixii ka dambeeyay halka ay caalamka intiisa kale ay bilaabatay 1950 wixii ka dambeeyay macna caalamka 1950 wixii ka dambeeyay shaqaalaysiinta dumarka si xawli ay buu ku socday laakiin turkigu aad buu yaraa xilligaas macnaha shaqaalaysiinta dumarka ragga la shaqaalaysiin jiray laakiin 2008 wixii ka dambeeyay ayay dawladda turkiga bilowday in ay dumar tiro badan ay shaqaalaysiiyaan taasna waxay keenaysaa in dumarka ay kala barka yihiin muwaadiniinta wadanka ay kala barka yihiin taas oo kor u qaaday in xaddiga shaqo la'aanta ay aad u tiro badato qodobka afraad wuxuu noqonayaa isfahan la'aanta xagga xirfadda ah ee u dhaxaysa shaqaalaha shaqadoonka ah iyo shirkadaha shaqada bixiya shirkadu waxay doonayaan qof xirfadda uu u leeyahay shaqada ay tahay mid qoto dheer ama inuu yahay mid la jaanqaadi kara isbeddelka tiknoolajiyada ee caalamka ka dhacaya sidaas darteed waxay shirkadaha ku khasabtay in ay shaqaale u raadsadaan wadamada dibadda si ay u helaan shaqo tayo leh macna shaqaale tayo leh si ay u helaan ayaa waxay dalbanayaan ama wadamada dibadda ka dalbanayaan shaqaalayaal tayadoodu fiican tahay mushaarka ay ku shaqeynayaan uu yahay mid yar hadaba waa maxay qaabka loo xalin karo mushkiladan uu keenay shaqo la'aanta ay keentay waa maxay si loo xalin karaa mushkiladda ay shaqo la'aantu keentay marka koowaad waxaan dhihi karnaa in maalgashi la sameeyo gaar ahaan meelaha dadweynaha lagu sameeyo macna meelaha dadweynaha haday noqoto isbitaalo in la sameeyo garoomad diyaarad in la sameeyo dekado in la sameeyo isbitaalo in la sameeyo goobo waxbarasho in la sameeyo kuwaas in ay dawladdu maalgashi ku sameyso ayaa lagu yareyn karaa mushkilada shaqo la'aanta sababtoo ah maalgashiga meelaha dadweynaha ah waxay keenaysaa in dad tiro badan ay shaqo abuur u noqoto sidaa darteed muhiimadda koowaad waxay noqonaysaa in maalgashi la sameeyo midda labaad waxaa la rabaa in dawladdu ay sameyso dhiirigelin gaar ahaan goobaha ganacsiga ee khaaska ah in goobaha ganacsiga ay dadka khaaska ay leeyihiin in dhiirigelin la sameeyo si ay dadkaas hidiilo marka u yeeshaan ay maalgashi tiro badan u sameeyaan qodobka saddexaad waxaan dhihi karaa yareynta iyo hoos u dhigidda canshuurta laga qaado shaqaalaha caymiska iyo shirkadooyinka shaqooyinka bixiya yacni shirkad soonahan oo kale company baa wuxuu ka soo gooray maraykanka ka soo gooray wuxuuna ka caawinayaa in maraykanka canshuurtiisa ay tahay mid xad dhaaf ah macnaha dawladdu waxay ka qaadaysaa shirkadan canshuur bay ka qaadaysaa saa darteed shirkadaha iyo bankiyada iyo mataqaana warshaduhu way ka soo cararayaan wadamada canshuurtooda ay tahay xad dhaaf waxayna imaanayaan wadan kobac dhaqaale sameynaya haddana dawladdu ay qaadayso canshuur aad u yar marka dawladdu marka ay hoos u dhigto canshuurta ay ka qaadaysay shirkadahaas waxa badanaya in ay shirkadaas ay sameyso maalgashi cusub inay meelo badan maalgashi wadankaas gudihiisa maalgashi ka sameyso dad badan oo muwaadiniinta wadankaas ay shaqo abuur u sameyso saasna waxa ku yaraanaya xaddiga shaqo la'aanta ee wadanka jirtay qodobka ugu dambeeya
lagu yareyn karo mushkiladda uu keenay shaqo la'aantu waxa weeye in ay dawladdu muhiimad weyn siiso in ay dadka ay badho xirfadooyin kala duwan si ay dadkaasi si fudud ugu helaan shaqooyinkooda yani dawladdu markay qofku ay badho xirfadooyin kala duwan dhanka computerka wuxuu ka yaqaanaa computer science-ka caafimaadka wuxuu ka yaqaanaa halka xagga dhaqaalaha iyo maamulkiisa wuxuu ka yaqaanaa qofkaasi waxay ku kalifaysaa in uu siifiyo badan oo meelo badan oo kala duwan uu geysto sidaasna uu ku heli karo shaqadiisa haddaba haddii ay dawladuhu sidaas sameeyaan waxay arrintaas ka kaafin kartaa in waddanka uu noqdo waddan dhaqaalihiisa uu ka bacayo muhiimadana waxa weeye in shacabka meelaha khaaska ah in mataqaanaa la dhiirigeliyo in la sameeyo waddanku uu sameeyo maalgashi in shirkado cusub waddanka la keeno oo dhaho dhulkan iska ballaaran beerta oo wax soo saarkiisa sameeya waddan walbana waxa lagu qiimeynayaa wax soo saarka macnaha waddanka wax soo dhoofsigiisu uu badan yahay inta badan negative weeye marka nan macnaha markii la eego mataqaanaa xaddiga mataqaanaa wax dhoofsigiisu marka uu ka badan yahay wax dhoofintiisa waddankaas dhaqaale burbur baa ku dhacaya